بسم الله الرحمن الرحيم وعن أول أكسن دمانتين بقى خيارتها وذا نقل حديداي هل كانوا وحويا قول اسمه جروب أو غبرتين وحيابها يشير بالشدة الصومالية وفايدة إن نقصوا بالبنو إن أو وحن آد وفرح أحسن هاي إن مرتدى هل قصوا أو مرتدى آد يا آد وقالية وحويا حق ميدك توحي حكته بروفيسور يسو هذا عيسى لنا عن كانوا وحي حكته دكتور مريم قاسم والله بدو أي صومالي ذا آد dhexdeeda looga yaqaan qiimana ay ugu leeyihiin waxa aan idin leeyahay marka hore labadiinaba ku soo dhawaada stuudiyaha GMG waa tahay wajiyadooda idinku cusub baan filayaa labadaba aad baa u garanaysaan Maria Qaasim waa wasiiradii Soomaaliya ee waxbarashada inkastoo aan u malaynayo inay dhowr position isku haysay oo aad baa u garanaysaan hodan ayaduna waxa weeyaan aqoonyahan dadka Soomaaliyeed ay aad u yaqaanaan waxa weeye marlabaadka marwadii gaas madaxweynaha Puntland idin barimaayo oo aad baa u taqaanaan barnaamijka ujeedadiisa iyo dulucdiisa ayaan doonayaa inaan u daadego aan ku horeeyo hodan aad baan kugu soo dhaweynayaa wadanka Norway sida ay dadkii kale ee Soomaaliyeed ee aad la kulantay bay kugu soo dhaweeyeen سؤال هريسة يعني دوني إن عن كفرة إن برنامجك سؤال عشان نديك ويديني وحوي إن واحد أساسيات كمية هاي أوركا إن دمر قبل حدود الصومالية إن أوركا سبحان الله لين يوحي تاني هاي وحيا بقى فائدة نقطنا ومت الصوماليات جودهان كرهنا دمر الصومالية إن وربحنا قصي هلك أي مرة يسوع شقديس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta aad iyo aad baa mahadsantihiin inaad maanta nasiisaan codka waxyaalaha dadku ay aad iyo aad u xiseeyaan waxa weeye inaad heshid chance aad ku heshid waxaad adigu tabanaysid ama aad rabtid dadka inaad u gudbisid qofka barnaamijka ku siiya markaad ku mahadsan tahay inaan maanta waxaan ku soo qabsanahay gabadh Soomaaliyeed oo wariye ah inay maaragtay warka naga qaado taasina waa arrin aniga aad muhiim igu ah ururka aad ka sheekeynaysid ururkaas waxaa lagu asaasay magaalada Garowe sanadkii 2010 waxaana ka soo qayb galay dadka Soomaaliyeed ee shanta calanka berigii hore ku madoobay afka Soomaaligana ku hadla ama ha joogaan Kenya ama Ethiopia ama Djibouti ama Somaliland ama maaragtay gobolada kale Soomaaliya adigu shanta calanka dadka Soomaaliyeed dhamaantood South Central adigu gobolada Soomaaliyeed oo dhan ka soo wada qayb galay iyo gabdhaha diasporada ah iyadoo loo oogan qaladooda baa waxa lagu soo xulay in la helo maadaama dhibaatadii dagaalku dadka ugu saameynta badneed ay dumar ahaayeen aanu isniri inanta Soomaaliyeed ee joogta jigjiga ama ta joogta Baydhabo ama ta Gaarisa joogta ama Kismaayo ta joogta ama ta Garowe joogta hal mid bay ka sameeyeen waayo dhibaatadii oo soo wada gaadhay iyagoo dhan dhalaankoodii oo badda ku dhimanaya iyagoo maaragtay cod siyaasadeed aan lahayn awoodii dhaqaale gacanta ku haynin saasay tahay culayskii family-gu kii qurbaha dibad jooga iyo kii dal joogaba iyagii soo food saaray waxaanu isnidhi sideebaad u samaysan advocacy at least wax u dooda arrimahoodana runtii banaanka soo dhiga ilaa markiina waa waxyaalo badan oo soo sameynayna waa jireen badigiina waxaanu soo saarnay waxyaalo badan mar dambe xataa waa la isugu soo noqday oo Djibouti iyo ay ka soo wada qayb galeen gabdhaha Ingiriiska mid baa lagu qabtay Minneapolis mid baa lagu qabtay xamar in badan baa laga shaqeeyay runtii ururkii hadda wali wuu socdaa siyaasadii sidaan u rabnayna runtii waad iska garanaysaan dadku wadadka ka shaqeynaya ma aha NGO inuu noqdo waanu diidnay inuu advocacy noqdo dawladna advocacy waanu wadnaayo iminka laftigeeda Soomaalida gabdhaha Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed iyo qoyska Soomaaliyeed siday u badbaadi lahaayeen oo Ilaahay uga badbaadin lahaa qaxootiga iyo dhibaatada gudaha iyo dalkaba ku haysa waxa hadda caawan halka u fadhino oo Norwayna keentay ama aanu la hadalo wadankan institutionskiisa ugu sareeya ama ha noqdo dadkaba inaanu maaragtay wacyigelin ku sameeyno sidii baa loo wadaa advocacy mu ahayn awalba NGO service sameeya wuxuu ahaa advocacy group advocacy-gina waa la wadaa aan u soo jeesto Maryam
مريم وقت يودم بيسي أن واحد هيدا وسيركي وحبرشة إنك سو وساردة كلا أو بدل معي هو سمنة يصير عن أملاين يو إن ولو أنا نهبين إن هذا شقد عاد هيسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وزارة وحالة هجرة مقعدة تاسان ربح وقعنا صح مكورة وزارة هرمرنت إيو أذيك بالشدة مركي دمان اللي وزارة دوت إيه وكلا جبتي مالنتي حلو ريجينتا لح وزير أيام حلك وريجي هذا شقة عن هي وحوي وحن تالي وأهاي برايم مينستر كأيو دولة أو إذل أنا جو كلا تالينا هي أرمها سوشيالك ويقوم مهم سيهين عافماتك إيه وحبرشة إسلام رهانتا وحن لشقيا UN قيبها معناها UN agencies كوحكة لك تسني كشقيا وسكو هذا النوع معها مركا قيبها كشقيا أرمها بالشدة أيها وانا الشقيا إسلام مركز وحن هي goodwill ambassador في Somalia وحن نقوله مقالة أنا هاي أرمها عافماتك للانكي ويد وشقة ونحسن علوسنا يد اللفتجيد أو عن واحد بدن كيرين شقة دي هراء قبل يصير وحن لنا هاي إلهي هكوكو ليه هذين ودي بقول نقولنا حلقي أد وسير كأحد أد دولة كم ده هاي واحد ترتي بانفيليا إن أيضا كوبرنين وسير هذا دمرك ترى إيصح مساعية هيدا أرتقلها وسير هذا وزير هذا لما قعابي مركز وزير هذا أدب ويرى وزير هذا رمبا waxay طبعا وزير طبعا كاس لبدو مران كوهين أنا فوزية هي سيديت رجع كدبنا وحلا ما قاعد وزير كوهين هذا مركز دولة دايرة أيضا طبعا كلي هاد الكابينات كوزير هذا بوحة واتهاي واحد شرطة إن أي شان إن حول معلومات كأوجار كدولة وزير هذا إن أي كل مان ويجي مانين إن مركا بعد ما بقى على بدو مروكلية أحيدين تلسو جيدين توسير هذا مركا يسقط ما دام تلسو جيدين إنسان أنت إن لأج أي إذا كقاعدين ترى رجوا تلاذ دمرهان أسو جيدين أما سي أي دبدين كسر نقول تلاذ إن ميال مرتي ولا قاتل إن هرت حلقي أنا كأنقولها وسير هذا كجرا مدير أو قوام بأهي إن دمرنا وحن هين لبوا وزارة ولا بضبط أد باورفول وزيرة دي وحيد وزيرة فوزية waxay ahayd wasiirada arrimaha dibadda ahmiyada ay leedahay wad garanaysaa in wasaaradda baaxadeeda isla markaas wasiir kaliya ma ayna ahayn waxay ahayd deputy prime minister marka macnaha anigana wasaaradahan badan oo isku jiraan haynay marka macnaha ma aanan dareemaynin codkeena aad u xoog badnaa laakiin muddada way yarayd meesha aan joognay waxa sababaysa marka labada wasaaradooda muhiimka ah ee haysan mise dhageysi ay marka ragga Soomaaliyeed u bislaadeen inay dhageystaan dumarka Soomaaliyeed marka talada la haya marka horta mid markaan fiiriyo fawziyo kala de waa deputy prime minister marka wasiirada madaxda uu tahay shama markuu maqan yahay prime minister shirka ayda jeer gareynaysa ayda kursiga prime minister ku fadhisa ayda xafiiska prime minister ka fadhisa marka waa madaxdoodiiba marka haday u bislaadeen iyo hadii kalaba waa qof madaxdooda ay ahayd een hodan waxaan ku weydiinaa hodan ciise waxaan ku weydiinayaa sida ka muuqata dhaqdhaqaaqa aad samayso ee aad u hayso ummadda Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan ku saleeyo su'aashan hadda aan ku weydiinayo waxa jirta in ragga Soomaaliyeed ay ujeedadu ma aha inaan iyaga si gaar ah focuska ugu hayno laakiin waxaan jecelahay in idinkiyo anaguba aan jecelahay gaar ahaan hadii aanu nahay TMG ama Golis Media Group in aanu ummadeena ay fahanto waxyaabo badan oo loo baahan yahay oo loo baahan yahay hore looga socdo waxa jirta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo u badan dumar oo qurbaha joogtay iyo dalkiiba wax baratay han siyaasadeedna leh ka qaba waxoogaa shaki inaanay hankooda siyaasadeed kula tartami karin waxyaabaha habka sida waxay aaminsan yihiin raggeenu haddii aan taa hoos uga soo daadego dumarka iyo qabiilka maxaa iskaga xiran dadka okay horta waxaan ka hadashay qabiilka iyo dumarka markaad eegtid waxaan aaminsanahay qabiilku haddii maanta la odhan lahaa ma odhan karo waa cudur keliya waxaan aaminsanahay resourceka laftigiisu inuu yahay waxyaalaha ugu waaweyn oo meel kasta oo dadka Soomaaliya ku hadlaya Soomaaliya joogto maanta la isku haysto waa resourceska noocay doonaba ha ahaadaan qabiilkuna wuxuu noqday aalad loo isticmaalo sidii resourceska yaraa adduunka Mareykan ama ha noqoto Bill Gates
laftigiisu resource waa ku yaryahay waa annaga ugu taajirsan waa arrin caalami oo la yaqaano marka qabiilku wuxuu noqday aalad loo isticmaalo marka qabiilku ilaa xad kaa galo oo dadkii kala jajabiyo oo xitaa qofka microphone-ka la siinayo uu noqdo resource la siin waaye ee qofka wasiirka laga dhigayo runtii wuxuu noqday qabiilkii aalad loo isticmaalo laakiin waa aaminsan inuu yahay root cause waxa problemka ka jira inuu yahay dumarka gaar ahaan iyo dhalinyarada oo labadooduba aniga ay aad iyo aad igu dheer yihiin waayo waxaan aaminsanahay saad sheegaysid labadooduba ma haystaan platform xitaa hadday haystaan fikradda ugu fiican qofka caqligu ku jiro ilaah baa og laakiin inaan soddon jira iyo qof dumara oo moorka da-da kastaba ha ahaatee oo marka la isku diro tiradooda hadda ka horna waan sheegay 74% UN statisticsku ay sheegayso in laga maarmo taladooda iyo tayadooda wax aqli galaba maaha wadan aan dumarkiisa iyo dhalinyaradiisa baadi ma noqdo wadan ruling body wadan ma noqdo waxa uu noqdo dadkiisa human capitalkuna 74% lama awoodooda lama xanibi karo marka run weeye xanibaad badan baa jirta markaad aragtid especially meel kasta oo ay siyaasadii ay ka jirto xataa haddaana u ekayn 4.5 wax qabiil baa lagu soo xulayaa qabiilkuna gabadha hadday jecel iyada gabdhaha way jecel yihiin gabdhuhu iyagaa gogasha dhigaya iyagaa dadkii wax kasta samaynaya iyagaa lacagta ururinaya kuwa dibadda iyo kuwa gudaha laakiin markay wixii noqoto wixii in la kala siiyo oo la distribute garayo wixii resourceska ama lacag ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama siyaasad ha noqoto intuba waa wada resources intii lagama qayb gelinayo waayo miiskii lagu kala xaajoonayo la fadhiyayba ma fadhiyaan way ka maqan yihiin sababta ka reebaysaa ma markaa ma qabiilka mise waa bisayl aanay u bislaanin dadkeenu in dumarka ilaa xad laga martigeliyo horta bisayl wadanku waa u bislaa gabdhaha aniga groupkaygii waxaan aaminsanahay inaanay jirin anigu markaan soo korayay marna caqligayga may gelin gabadh baa tahay oo waxaanu ninku samayn karin baana maaragtay waxaan ninku samayn karin ayaana samayn karin laakiin hablaha yaryar ee iminka 25 jirka wadankii joogaa waxaa laga yaabaa qaarkood in laga dhaadhiciyay inay shame noqoto inay gabadh tahay waayo intii dagaalkii sokeeyey socday waqtigu doontaba ha bilaabday ilaa hadda socda gabdhihii roolkoodii wuu isbedelay gabdhihii yaraan baa lagu guursanayaa gabdhihii siyaasadii lagama qayb gelinayo gabdhihii xataa qaar baan iskuuladii jaaniskii la siinaynin dee maba tirada waad garan kartaa hadda arrintaad sheegaysid waad garan kartaa markii hadda dowladda soomaaliyeed transitionka ka baxaysay waxaanu dariiqaanu marnay oo waanu mudaharaadnay oo meel kastaanu istaagnay oo odaya beeladyadii baan hortooda ka heesnay si gabdhihii xaqayagana siiya oo at least 20% 10% waxaan aaminsanahay Marian iyo Fawziya adigu about 20% bay ahaayeen 10 wasiir waxaanu aaminsanahay in dagaalkii gabdhihii Soomaaliyeed ee xamar joogay ee qolo kasta oo Soomaaliyeed ku jiray dagaalkii ay galeen urur kasta ha ahaadaan ama NGO ha ahaadaan ama north ha ka yimaadaan ama south ka yimaadaan ama galbeed ama bari waxaanu isku kaashanay inaanu isugu nimaado in gabdhaha la kordhiyo baarlamaanka lagu kordhiyo wixiina waa tadawur weeye waqti buu qaadanayaa marka anagu waxaanu ka rajaynaynaa gabdho kasta oo dowladda ku jira ama wasiir ha noqdaan ama baarlamaan ha noqdaan inaanay halkii markay tagaan aanay fadhiisanin ay halkii arrintii kasii wadaan oo problemkii aanu halkaa ku istaagin waayo voiceka meesha miiska ku fadhiya waa iyaga hadday marka voiceka iyo qabiil ay kala raacaan then jugjug meeshaada joog baa la odhanayaa inta kale dumarka laftigooda waa inay isku ogolaadaan waxaan aaminsanahay marmarka qaarkood markaan dumarka iyo siyaasadooda arko cadowga ugu weyn qabiilka iyagaa la iskaga daranba tii mid tagtaba mid kala ka daba carayso soo ridaysa marka inaga laftigeena cataasa cadow nagu noqoto waxa leeyahay horta iyagu dumar oo soo heshiiyey ninkii baaba lugaa isjiidayay marka anaga laftigeenu waxa weeye inaynu arrintaa ka tabashano laakiin qabiilka maaragtay miiskii unad fadhiin unad go-aanadii wax ka qaybinaynin waxaas oo dhan wuxuu noqonayaa caqabadaha ku taagan gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha ku taagan aan u jeesta Marian bacdamaaba systemku yahay ka kaliya ama dawladnimadu ka kaliya uu yahay umada simi kara rag iyo dumar ilmo yar waayeen qabiilku uu yahay wax gaar ah oo marka hadii jeer wax la qabanayo waliba dhulka Soomaalidu ay dibto ama dadka Soomaaliyeed habka ay u dhaqmaan dhinac saaraya ama u badinaya hadii jeer raga dumarku miyaanay haboonayn marka in ay raadiyaan iyagu systemka umada oo dhan danta u wada ah ee ah dawladnimada bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa sidaad sheegtay sida kaliya ee wax lagu gaari kara waa dawlad dhisan oo system leh oo meel wax loogu hagaaga leh
dumar iyo cashuur iyo inta liidatoo dhanna dowladaasaa xaqooda iyo waajibaadkooda u kala sooci karto. way bilaabeen dumarka gruubkii hodan ay horseedaysay oo meel walba isaga yimid oo garow isugu yimid ee ujeedooyinkii la isugu imaanayay waxay ahayd in la helo system. ilaa xamar meel walba lagu mudaaharaadayay waxa la raadinaya waxay ahayd system. ilaa haddana way socotaa oo gabdhihii kama fariisanay hawshii iyada ahayd, laakiin waxaa loo baahan yahay sabar. sababtoo ah waddan dhowr iyo 20 sano soo burburayay waa tareen waddadii ka dhacay. marka soo noqoshadiisana waad qiyaasi kartaa inay u baahan tahay muddo inay qaadanayso. waa in la sabraa. dumarkana way sii wadaayaan halganka oo lagama daalaya. marka waxan way iska imaan doonaan oo tartiib tartiib bay u imaan doonaan. haddaba wax badan baa isbedelay oo haddaba maanta dowlad hadday rabto ha ahaata wiik waxbaa un jira soomaa haddaba oo aan jirin markii hore. marka midanna oo in system la helo, system gabadha ay waxeeda ku goosan karta ama ay ku heli karta in la helana way imaan doontaa. laakiin dhinaca kale systemka naftiisa haddii aan looga loobi karaynin gabadha maxay ku leedahay? de waxaa jira dowlado dhisan oo system leh oo xoog leh oo gabarna waxba siinin. marka systemka keliya hadduu yimaado oo laakiin systemkii oo siyaasadiisa gender sensitive ayna ahayn oo gabdhaha ayna intay loobi karaynin oo codkooda la maqlin, hadduu rabo systemka uu ku iloobayaa. laakiin hadda waa la maqlaa codkii gabdhaha. ilaa waagaas garawa hodan iyo ay fariisteen ilaa hadda gabdhaha way wadaan advocacy hawshii waa la wadaa. marka waan rajaynayaa waqti bay qaadanaysaa, beriisaa damba ma aha, laakiin insha allah way imaanaysaa. aad baad mahadsan tahay. ujeedada aanu ka leenahay ma aha in laga soo horjeeda ragga ama loo jeedo dumarku inay si aan loo baahnayn u socdaan, in iyadoo dhaqanka iyo diinta labadaba lagu salaynayo oo aan laga tegaynin. haddana waxa weeyaan wacyigelin aan ugu talagalnay gabdhaha Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan si uu wadanku u dego oo looga baxo dhibaatooyinka maanta jira ama se la soo marayba. برنامجka waxa aan jecelahay inaynu soo gabagabayn doono mar dhow. intaan soo gabagabayn hal qodob baan doonayaa iyo laba inaan dib ugu noqdo. hodan waxa jirta wadanka dhulka Soomaaliyeed dadka waxa ka jira oo ka dhaca hadii jeer kufsi tacadigaas oo tacadi dumarka u gaar ah keli kuma nihin oo ka dhaca wadanada kaleba tiradu doonaba hal ahaadee, laakiin sharci baa jira la mariyo qofka oo looga aargooyo qofkani hadduu qofka khaladka galay sida dee ummadda bulshada kaleba uu la siman tahay. waxaa dhacda in bulshada oo dhami ay agaynis ka noqoto gabadha dhibku soo gaadhay iyadii la kufsaday. systemkii laga yaabo inuu dhinac ka noqdo, labadii reer iyagu gaaro heshiiyaan, bulshadii dhaleecayso iyadoo xoog wax loogu sameeyo, xoog lagu qasbay, bulshadii dhinacii systemkaba ay dhinac ka wada maraan. maxaa lagu daweyn karaa oo ummadda Soomaaliyeed la gudboon ayay kula tahay dhibaatada iyo tacadiga in lagaga baxo? bismillah, horta waad mahadsan tahay. waa run waxaa ugu markaad danqashada ugu xooga badan leh ood aragtid waxa weeye inay yar ama inaad qof dumar intay doontaba hala ekaatee oo ma inta la kubsaday oo iyadii jirkeedii iyo nafteedii violation lagu sameeyey haddana noqoto victim oo dadkii marka haddana isqarisa sida iyadu dambiga gashay. horta waa cudur aad iyo aad u weyn oo weliba kuway dhalinyarada aan waxaan xusuustaa inan yaroo 7 jir oo la kufsaday xamar markaan joognay oo 2 sanood kala jabeen oo deetana African Unionka dhakhtarkiisa la geeyey oo nin 3 jir oo kufsaday. haddana ka bacdi hooyadii baa la ii qariyay inantayda, waayo waxay ka baqaysaa inantaa yaree 7 jirka ritoole markay waqtiga guurka gaadha haddii ilaahay badda uu ka saaro dhibaatadan soo gaadhay. waan arkay meel kasta oo Soomaalidu ku hadasho dadka Soomaalida ku hadla ay joogaan kufsigu wuu jiraa. kufsigiina wuxuu noqday gabadhii marka la kufsado waxa keenaya baa noqotay wadanka haddii uu systemku ka lumo oo institutions of law hadday lumaan waxa weeye qofka xitaa in la soo qabto iyo waxa bedelay dhaqankeedii baa bedelay, dhaqan baa bedelay. oo waxa laga yaabaa gabadhii oo la kufsaday inay laba oday oo adeeradeedii intay heshiiyaan gabadhii iyo
reerku iyo hooyadeedba ama idaba banaanka laga saaro aan waxba hadhowna la qarqariyo aan kugu dare aan ka dhex galaad goraale waliba waxa laga yaabaa in dhaqaale inta la isweydaarsano haddana dhaqaalaha shakhsiga dhibaatada ku dhacday aanay waxba ka gaarin habayaan aanay waxba ka gaarin guurkii bay lumisay sumcaddii bulshaday lumisay dambiga ay gashayna muxuu yahay waxa weeye dambiga ay gashay in dambi ay gashay ma jiro qof baa dambi ka galay meesha arrintaas waa arrin baahsan waa arrin u baahan hablaha Soomaaliyeed especially gabdhaha diasporada ah oo haysta sharciyada oo haysta codka oo haysta lacagta arrintaasi arrin loo dul qaadan karo maaha bini'aadamnimada ay ka baxsan tahay diinteena ay ka baxsan tahay dhaqanka Soomaaliyeed bay ka baxsan tahay waa in arrintaa movement laga sameeyo oo gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tu yar iyo tu weyn tu hooya iyo tu inana tu wax baratay iyo tu aan wax baran waa arrin ina midayn kara waayo qofka bini'aadanka ilaahay baa karaameeyey qofka hadduu ilaahay karaameeyo in karaamo darada intaa leeg inta lagu sameeyo oo la xanuujiyo haddana loogu daro nolosha intii ka hadhay inay noqoto qof victim ah oo aan xitaa maaragtay la taaban karin la hadli karin la guursan karin wejigeedii bay ana arkay kuwa wejiga qarinayo intuu seen waayo ma rabaan inay dadku arkaan marka waa arrin aad u khariban waa arrin xumaato badan gabdhihii ku dhalisay annagana xumaato nagu dhalisay laakiin waa inaynu wax ka qabano waxna waa laga qaban karaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa wacyigelin iyaduna aanu jecel lahay bulshada Soomaaliyeed inay nala qaadato meel kasta oo ay joogtaba si looga qabto waxyaabaha ummadeena ama dumarada ama raga ahaado in dhibaatada ku haya in aan Maryam siiyo adigu fakarkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim horta arrintu waa arrin aad u xanuun badan waayo waa qof xadgudub intii ugu weyneyd lagu sameeyey arrintan maxaan ka qaban karnaa aniga arrinta aad ila muhiimsan waxay tahay gabadhan dhaawac xoog lahaa loo geystay xataa nafsiyan dhaawac gaaraya ayaa jirkeeda kan ku dhac waa loo wada jeedaa ka nafsiyan gaaraya ka sii weyn marka dhibaatada intaas la eg ay dhacdo in la helo waxaa jira ururo ka shaqeeya xuquuqul insaanka iyo howlahaas ka shaqeeya jira gabadha dhibaatada markay gaarto horta in garansiya la siiyo ninkan inuusan baxsanaynin dambiilaha ah mujrimka ah in cadaalada lala tiigsanayo ayadana inay hesho wixii baaritaana wixii caafimaadkeeda ku saabsan howlahaas oo dhan marka muddada ay socoto hawshaas gabadha waxay soo doonatay waxay u imaanaysaa NGO oo howlaha human rights ka shaqeeya ama isbitaal ama meel unba imaanaysaa mogtahay gabadha waxay xaq u leedahay haddayna ayada ogolaasho dhiibin daytadeeda in la qariyo macnaheeda ma aha daytadaa la qarina kayskia la qariyay oo la daboolay ma aha laakiin gabadha hebel ah sirteeda gaarka ah gabadhii inta loo qariya haddayna ayada ogolaasho ah sirteeda waa la faafin karaa iyada aanan laga helin marka daytada la qarinayo ma aha macnaheeda kayskia la daboolay kayska cadaaladda meesha ugu sarraysa in la gaarsiiyo waxyaabaha aniga aan ka xanuunsaday oo hadda markaan xamarka soo baxay anuu aeroboortka jeega shokeenka ama qale waxaa ka mid ah wiilashii waa la suuqa qabto dee wiilasha meel bay kasoo jeedaan khatar ah manaagtii kayska gacanta ku haysa iyo warantay waxay igu tiri intaasaan samaynay gabadhii xaggan ka dhacnay then wiilashii waa la soo qabtay waxaan keenay full information maxkamadan la tiigsanay maalintiidaba banaankaa lagu arkay wiilashii haddii markii hore wiila aabiis lacag ku korkortamay 10 kun aan siinaa cunugtan xunta ee meesha marka waa la diido waxay lahaayeen gabdhahan wax weynaad qaban kartaan wiilka waa la xiray wiilkii markii dambe waxay dhaheen mar walba kale waa la soo daynayaa macnaha cadaaladii ma qaadanaysa jidkeedii oo system ma jira oo isla xisaabtan ma jira taasaa waxay keenaysaa reerkii bardu wiilkii waxba lagama qaban karee xoogaagan qaata xoogaagiina gabadhee dhanba saaraysa marka dhibkaas ugu jira aad u weyn marka aniga codsi qolyaha miidiyaha ah iyo qolyaha ka shaqeeya howlaha dumarka waxaan ka codsanayaa gabadha daytadeeda xogteeda waa qarsoodi ma aha kayskeen la qarinayo kayska waa laga shaqaynay ilaa maa gabadha ay dhahda ana TV-ha layga soo gelay anaa rabaa hadday iyada dhahda journaalka laygu soo qora anaa rabaa laakiin
gabdhaha waxay u fahamsan yihiin cilada meesha ka jirta haddaana tv-ga lagu soo gelinin ama musawirkaaga joornaalka lagu soo qorin wax laguma qabanayo waa inay ogaataa 100% in wax loo qabanayo haddii ay tv imaata iyo haddayna imaan inuu shardi noqonin macnaha ayadii oon rabin in la arka inay dhahdo tv-ga imaanaya si wax laigu qabto so data protection adduunkana ninka jirta India waad aragta reebka sidoo uga dhaca jidka reebka meesha uu ka dhacay jidka ay deganta gabadha data protection uu ka mid yahay marka intaas ay sheegayaan aad baad mahadsantahay waa hawl u taala ummadda Soomaaliyeed oo dhan in ay gacmaha isqabsadaan oo ay wax ka qabtaan arrinkan culus guntiga gabagabadii baa la soo gaaray waxaan ku soo gabagabeynayaa Maryan mid xabad hadii la hay ka dhigo waxa taariikhda ku xusan oo jirtay 1956 in ay ka dhacday markii u horeysay ahayd ee doorasho ay ka qayb galaan dumarka Soomaaliyeed waqtigii sawdka ama dhinacii u haystay Talyaanigu oo ay ahayd xisbigii SYL awoodii faraha badnayd ee uu ku soo baxay iyo xawligii ay dumarka iyo dhalinyaradu ay ka qayb ahaayeen ama qaybta ugu weyn ay ahaayeen bacdamaaba ilaa xilligaa ay soo jirtay ilaa iyo haddana ay socoto dumarka Soomaaliyeed waxa u diidan in ay iyagu hore u soo baxaan oo ay qayb banaanka isa soo taagan oo ay dalka iyo dadkaba waxbay u qaban karaan oo si guriga u ilaaliyaan bay dalkana ugu la jecel weyn yihiin inay iskaashadaan iyagu soo baxaan maxaa ka hortaagan bay kula tahay bismillah midaas waxaan ku soo koobayaa dhaqanka soo jireenka ah waayo gabadha waxay aaminsan tahay SYL sidaad sheegtay ayagaa lacagta guriga ayagaa dahabka iibinaya ayagaa wadanka waxa lagu xoreeyay keenay way ku qanacsaneed way ku faraxsaneed laakiin waxay kaloo ku faraxsaneed in arrimahan maamulkooda ee ragga uga dambaysa wuxuuna ahaa dhaqan soo jireena aad baad mahadsan tahay waqtigu ay nagu kooban dartii hodan ay dibka ugu celin maayo su-aasha ay Maryan ka jawaabtay ama aan Maryan weydiiyey inta aan ku soo koobaya waxa weeye adigana waxaa jirta oraah ama geeraar hawleed aan idhaahdo ama gabay inta badan aad isticmaasho marka aad joogto goobaha la isugu yimaado bal waxa aan doonayaa inaad geeraarkaas oo aan u malaynayo halka dhigiisu inuu ahaa iyada oo hal iyo laga hadlaayo marka gabadha Soomaaliyeed oo ninku marka uu leeyahay hal yahay geeridaadu gaawo madan iyo gaajo laga qaad gabadhana iigu dar waxa weeye markuu waa nin gabayaya marka runtii ragga Soomaaliyeed dhaqankeeni gabdhaha aad u ciisan jireen runtii inaan gabdhaheenu waa gabdhaha kaliya kamida adduunka oo laga bixin jiray qori iyo 100 halaad marka anigu ma rabo dhaqanka inaan ku gudbo laakiin dhaqanku wuxuu lahaa heesna way dhacday heesa badan oo runtii gabdhaha ku akraam daraa jiro oo wacaayo ka caana galeen isma galaameed jiray heesta gabayga geelu aad buu attract gareeyay waayo waxa ka qoraa wax dumarka iyo empowerment-gooda marka gabayga markaan arkay wax la yaab leh ila noqotay waxa la yiraahdaa ninka heesaya wuxuu leeyahay geerideydana isaga ninkii markuu dhinto geerideydana guryo baa iyo goblan laga qaad macnaheedu reerkii cid iga dambeeyay geelow geeridaadana gaawo madan iyo gaajo laga qaad geerida haween guud la fira iyo gursi laga qaad waa tahay aad iyo aad ayaa labadiinaba u mahadsantihiin barnaamijkii intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa marka u dambeeya ayaan idin siinayaa maxaad ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaysaa aan kugu horeeyo adiga hodan runtii anagu had iyo jeerna waan jeclahay aad iyo aad dadka iyaga Soomaalida wanaagsaneyd isla jirtay isku toosnay waxaan rajaynayaa inay guul gaaraan inay midoobaan inay dadkeena meelaha lagu haystay qaxootiga ay dhibaataysan ee badaha ku dhimanaya in solution loo helo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu wahabkeena naga kor qaado magaca Soomaaliyeed kor yeelo unitigeena badiyo dadku balaayadan iyo taraamadan iyo waxaan nagu dhex jira ilaahay naga saaro dadku siyaasad way ku kala duwanaan karaan laakiin unity-ga Soomaaliyeednimadu waxa weeye in la adkeeyo daraf kasta ay joogaan aad iyo aad baad mahadsan tahay Maryan bismillah aniga waxaan rabaa message inaan gaarsiiyo fariin ummadda Soomaaliyeed waxaan haysanaa adduunka marka la fiiriyo waxaa la dhahaa dawladaha Carabta wadanka ugu qanisan ugu hodansan waa Soomaaliya dewaaba meeshaas baahida ee xaggee hodannimo taala laakiin markaad fiirso khayraadka dabiiciga ah dhulka hoostiisa ku jira hadduu petroleum noqon lahaa iyo hadduu macaadin kala noqon lahaa inta laga qoray
waad la socotaan had waqti aan ku galamahay webiyadaas durdurka baddaas dherarkeeda aad aragtay badda Afrika ugu dheer ka gees Turkidii waxay la yaabeen dadka baddaas haysto gaajo u dhimanay annagoo waxaas kaaga daranta dadkii aad bay u yaryihiin oo waaba 10 milyan ama 12 milyan macnaha dad saas u yar dhulkii ku weyn yahay oo bayna dhameen karin waxaa la dhahaa haddii Soomaaliya oo dhan la isu keeno kuwa af Soomaaliga ku hadlo dhan la isu keeno gobolka Jubbada Hoose ma dhamayn karaan marka dadka saas u yar tiradooda adduumaadka waxaa laga hadlaa 100 milyan dhulkii oo saas uga fara badan webiyo iska durduraay badii oo ka gees macaadin hoos iyo kor email walba maantana way ka gaajaysan yihiin de ayagii baa isnacay maahmaha Soomaaliyeed baa iyadana jirta walaala isnacay waana xoolo yareeyaan waana xabaala badiyaan marka Soomaalida qalbigeeda Ilaahay ha isu soo duma hadduu qalbigeeda Ilaahay isu soo duma de khayraadkoodaas ay la soo bixi lahaayeen ayaga adduunka wax taaran lahaa daafaha dunida qaxooti kumayna ahaadeen waa tahay barnaamijkii inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxa marti iigu ahayd Professor Hodan Ciise iyo Dr. Marian Qaasin oo iyaduna dhinaca fadhida xagga farsamada waa Engineer Jamaal aniga oo Anisahiba Ismail ay barnaamijka idin socodsiinayay waa stuudiyaha GMG waxaan idin leenahay inta ay mar labaad wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo